dagaal beeleed khasaare geystay ayaa ka soconaya galbeedka gobolka mudug si gaar ah deegaanka Jicbuur. dagaalkaani ayaa goordhow qarxay waxaana dhinacyadu isku adeegsanayaan hub leh nuucyo kala duwan. daryanka rasaasta ee dhinacyadu isku adeegsanayaan ayaa laga maqlayaa deegaano fogfog oo ka dheer deegaanka uu dagaalku ka soconayo oo ah deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka mudug. maleeshiyaadka halkaas isku dagaalaya ayaa ka soo kala jeeda magaalooyinka Gaalkacyo iyo Galdogob waxayna maalmo ka hor ku dagaaleen isla deegaankan kuwaasoo iska dilay dad gaaraya 22 ruux sidoo kalena waxay iska dhaawaceen 18 kale. dagaalkaasi markii uu soo gabagaboobay kadib ayay dhinacyadu maalmihii la soo dhaafay waxay u dhaqaaqeen aastaanka dadkii ka dhintay iyo sidoo kale baxnaaneynta dadkii kaga dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka mudug. maantana mar kale ayay halkaas isku dagaalayaan. dagaalkaani ayaa wuxuu yahay dagaal salka ku haya aana qabiil iyo sidoo kale dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka mudug. maleeshiyaadkana ma jirto ilaa hadda cid ku baxday inay kala dhexdhexaadiso waxayna colaada u dhaxeysa labada dhinac ay noqotay mid xirkaha goosatay oo dad badan saameyn ay ku yeelatay. dadka shacabka ee deganaa deegaankaasi ayaa iyagu kor hore ka qaxay deegaankaas maadaama dhinacyadu markasta ay halkaas isku dagaalayaan. hubka nuucyadiisa kala duwan ayayna markasta isku adeegsanayaan iyadoona sidoo kale dhinacyadu ay helayaan gurmadyo kala duwan oo ka kala baxaya magaalooyinka Gaalkacyo iyo Galdogob kadibna gaaraya deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka mudug. xaaladda deegaanka ayaa ah iminka mid aad u kacsan waxaana laga cabsi qabaa maleeshiyaadku inay khasaaro ba'an isku geystaan maadaama aysan jirin ilaa hadda cid ku baxaysa oo kala qabanaysa. baaqyada ka imaanaya culimo udiinka waxgaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya mas'uuliyiintooda ayaa soo taraya saacadihii la soo dhaafay kuwaas oo looga digayay maleeshiyaadka halkaas isku diiray kol horeetay inay mar kale isdagaalaan. hase ahaatee maleeshiyaadkaasi oo aan dhag dalaq u siinin baaqyada kaga imaanaya culimada iyo dadka waxgaradka ayaa iminka mar kale isdagaalaya. lama oga maleeshiyaadkani goorta ay ku heshiin doonaan dhulka uu Ilaahay ugu deeqay sidoo kalena hadii ay ku heshiiyaan si weyn u deeqaya waxyaabo aan macna badan aan ku fadhin ay maleeshiyaadkani waxay ku weynayaan dad daayar ah oo 20 jir ugu badan kuwaas oo markasta ku dhimanaya colaadda ka alowsan deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka mudug. muu baahan tahay tigid ama fiiso si aad ugu safarto wadamada aad jeceshahay. Xalana Travel Agency ayaa ku diyaarisay si ay kuugu fududeyso safarkaaga. tigidhada diyaaradaha oo qiimo macquul ah, adeegyo gaar ah oo ku diyaarinaya safar raaxo leh, ha ahaato shaqo, dalxiis, xaj iyo cumro intaba. waxaan khibrad gaar u leenahay inaan ku soo saabno fiisooyinka wadamada soo socdo. Masar 10 ilaa iyo 15 maalin, Hindiya 10 ilaa iyo 15 maalin, Kenya 3 ilaa iyo 4 maalin, Uganda 5 maalin. waxaan ku ballan qaadaynaa adeeg hufan, qiimo ku raali geliya, maxmil qancintaadan ka shaqaynaa 24 saac. ku xidhnow dunida, dalbo tigidhkaaga ama fiisadaada maanta oo bilow safarkaaga riyada. wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.